kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal waxaan idiin hayaa wararkii ugu dambeeyay ee garaadadii dhex meeraysanay Muqdisho oo lacag urursi iyo inay qasnada ka samaystay sidii dhiigii xoolaha iyo wixii loo soo dhiibay iyadoo Axmed Madoobe uu shalay tusiyay 300,000 oo dollar oo welibana saxaafada laga mamnuuc sidoo kale xasan sheekhna wuxuu u dhiibay niman ganacsatada wuxuu u dhiibay bahashii tasaa lagu dhiibay xataa dhaawacyadii iyo dadkii dhimashada iyo halkaas yaalaana xitaa kamaysi daba tagin dadkii qaxay waxaas oo dhan iyo halkay la mariyeen heshiiska Soomaaliya halku marayo waxay Soomaaliya kala soo kulmeen Djibouti iyo dhexdhexaadintoodii iyo halka uu marayo xaaladda ay imika garaadada iyo inaanay waxba gacanta ugu jirin markaas horese channelkeena YouTube iyo pagekeena Dhigaal TV bas subscribe iyo follow share garee meel fogaarsi cadawga Jamhuuriyadda Somaliland si aad u fahmaan xaqiiqada iyo halka ay marayso xaaladdu okay warniyo nimankii waa kuwii Muqdisho tagay waa kuwii wala dhacsuumay waa kuwii wafdiga dawladda federaalka ee Soomaaliya arintaasna been bay ahayd iyaga ayaa jujuubay oo xad sheekh xasab kaga dhigay oo waliba erga doonayay lacagtii markabkii kaga dhex jirtay containerkii la qabtay iyo waxyaabaha ay kala hadleen wixii oo dhan waa la diiday hase ahaatee waxay ula tageen ninkii xad sheekh kow bada saab maamul goboleed noo magacow bada saabna gobolka Soolu samee xogay lacagna noo dhiib ciidanka danab iyo ciidamo kalena nasi Soomaaliland naga celi okay nimankii uu ka dulbararteen xasan sheekh iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamsi iyo xukuumadda halka joogta buuxdi ku yiraahdeen war anagu waxaan naqana wadan la yiraahdo Somaliland oo isku xiran lamana kala googooynayo xuduudii Ingiriis iyo Talyaani mari jirtay weeyi niman yahow wax sida xuduudka Somaliland iyo Ethiopia noogu sameeysan yahay ayaan u sameeynaay waa idinka oo na yiraahdaa u magacaaba bada saab Ethiopia ee suurtagal marnaba maaha taasi ku biyo caba walaalihiina Somaliland la heshiiya Somaliland waa idin la diyaar wax kasto aad tabanasaan arintii waxay ku noqotay laf dhuun gashay iyo inay ka degi weydo nimankii hawiye u yeereen waxay warwara naga qabtaa tiina waxay noqotay waxaan soconayn xal sheekh markaa wuxuu ku qodbaday oo nimanka gacmaan u fidiyay idinkuna cidii wax tari kartay tara meeshii xamar bay yaala beeki wax noo dhiibaya alla wax siidaya adoo niman ganacsatiina waxbay u dhiibeen laakiin Axmed Madoobe ninka la yiraahdaa u bareeray shirbu u qabtay saxaafadu mamnuuc bay ka ahayd yaan la iga duubin buu yiri nimanka Somaliland anigu ma colaysan karayo iyaguna waxay doonayeen xulafo maamul goboleedada iyo waxa soo Puntland la safta oo u bareera tiina way socon weyday adu waxa la yiri 300,000 buu siiyay oo dollar wuxuu warniyo inta iska qaata deeniyo ducaan idinku daray iga daaya lookaas nimankii 300,000 waa niman akoonale oo gudida 330ka garaadada maxay in garaad allaankaas uu soo fadhiya Axmed Madoobe ka sii dambeeya niman fara badan adigu waxba lagu soo celin waxa ceeb tu tahay nimankii ku dhaawacmay dagaalkii uu lamaysan tagin wax arina laakiin xasan sheekh bay ku yiraahdeen xasan sheekh oo 150 qof oo dhaawaca Turkiga noogay dawladda noola hadal ha lagu daro dawladda Turkiga dadka argagixisada waxyaabahaas ka dilaan Soomaaliya qaraxyada waxa ku dhintay geel loo geeya iyada u soo daweysa 150 qof baad sheegaysaa hal qof idin geyn maayo soo dagaalka qayb kama yihi haddaan idin geeyo dagaalkan qayb ka ahay Somaliland waxay u arkaysaa inaan anigu dhaawacoogi qaadayo oo Soomaaliya qayb ka tahay inaan eriga dahaya iyaguna intay lacagtii ay urursadeen ka daba tageen maysan oran waar intan yar duca ka dhigto intay booqdaan wax lacag umaysan dhiibin waxa taa kaaga daran inamadan dagaalka ku dhaawacmay waxa ay dad reer miyiga oo iska xoolo dhaqata oo la yiri isaaq baa dhulka laga xoreynaya oo dagaalka galay oo niman yar yar oo dhalinyaro abay ahaayeen oo cidi ka dambeyn oo dhaqaale haysan oo waalidkood miyii joogo oo mid kastaba islaantii hooyadii intii fijaar subaga iyo wax yar qaaday meesha kaga daba tagtay niman dhaqaale maaha waxa la sheegay in dhaqaatiirta qaar laga dareeriyay qaarna laga saaray
markii ay dawadii iska bixin kari waayeen faleebooyinkii laga saaray arintaana waxa lagala xisaabtamayaa in garaad cali nimanka garaadada dagaalka geliyay ee dadka masaakiinta reer miyiga ku duulay ee maantana intay 300,000 iyo 1 milyan doolar qaateen intay sida u xaragoonayaan kolba cuntada qadada cashada nimankiiba casuumad bay ka bixinayeen okay nimankaasi markaasi kamaysan daba tagin taa hadayna ka daba tagin nimankii dadkii qaxay ee qaxootiga ahaa ee magaaladoodii ay dagaalka geliyeen laascaanood ee magaaladoodii ka burburiyeenna kamaysan daba tagin halka ceeb baa ka raacday arintii markii halka marayso nimankaasi halkaasay sheekadoodii ku soo abjarantay kumanay leexan dhaawici haddaba arinta kale waxa weeyaan Djibouti ayaa intii ay joogtay wafdi baarlamaanka Djibouti ka socda loo diray nimankan si bal Somaliland iyo iyaga loo yiraahdo war bal heshiis kaalaya oo waxa tabarsan sheegtay Somaliland idin dhexdhexaadinay nimankii wafdigii Djibouti way kulmeen ninkii Jaagar Ismaaciilkii Jaasiyad waa kii lahaa Djibouti waa dad wanaagsan halka akhriyay waxay yiraahdeen warni anaga waxba gacanta nooguma jiraan niman la yiraahdo jamaahiir la baxay oo dhalinyaro oo laascaanood joogta ayaa gacanta ku haya anaga waxba nagama go'aan nimankan haday go'aan qaataan Somaliland inay la hadlaan oo yiraahdaan war waan la hadalnay xabad joojimaan sameynana hodho iyaga la laynaya rag baa dagaal geliseen markaas aad leedii Somaliland balleeshin garaadadu waxba ma diidana hal garaad oo kaliya tala kaliya waa in garaad cali oo cuqdad kale iyo meel kale bahashan kala yimid barnaamijka aran ka sameynaya hadii Allah awood yiraahdo halka uu ka keenay taariikhdiisii sida uu xilka ku qabsaday meesha uu ka yimid bahashan cuqdad daacadii ku abuurtay ana idin haya waan idin soo gudbinaya laakiin taas ay noo dhameysay barnaamijka dama idin soo gudbinay nimankii marka Djibouti waxay ku yiraahdeen waranaga waxba gacanta nooma jiraan suga waan soo tashanaa laascaanood ba ku noqonana nimankii waa kuwa baadhi to baadhi lacag yaraabay kala habeynayaan kala meelaynayaan nin kasta account buu leeyahay lacagta inta garaadadu ka reebtaan ma inta kale waxa loo soo gudbinaya gudi 330 gudida 330 kuna shidaalka bixinta midaaminta ilaalinta kala miraaminta waashmaaninta waxa soo dhan baa laga jarjaraya waxooga yar oo rifbay baa rasaas iyo hub la soo siinaya nimankii ciidan imanaya ma jiro reelaas aanad way fahmeen dadkii kale way fahmeen cid walba dagaal diyaar hadda uma aha niman 30 sano dawlad dhismaysay aqliyada tiri aynu la dagaalanabay ilaa hadda la yaabayeen inay isdilaahdaan waan isdiibanaana weydine dhaawaca dhimashada liistiga dhimashadu waa 1700 oo qof ayay kor u dhaaftay 1700 ee la xaqiijiyay inay dagaalka ku dhinteen horta ilaahay ha u naxariisto 1700 waa dadkeeni ilaahay saha garasiye inta nool inta xaq la isku yimaado qarankoogii in la isugu yimaado nimankaas markaas xaaladoodu halkaas ay maraysaa xaaladuna way ku xun tahay maxaa la yiraahdaa xaalka garaadadu halka garaadlawayaashu waa harka mara sida hawli kuma tagin wali habarna u dheer wali xaaladdu way sii socdaa in garaad cali halkaas uu ka soo qayliyaa in garaad calina niman kala daba fadhiya oo idin sheegi doono oo ina Saleymaan Dafla iyo farmaajo iyo hadii wali gaas iyo kankiiniya meesha jooga iyo niman baa wax saa ugu qufulayo yarka waa lagu guuraya nin aqli badan ma aha way iska baaltookar waa ninka ma aragtay de halkaasi dadkiisii dagaalka geliyay horta hawshu waa halka insha Allah laakiin xaqiiqadu way soo bixi cidii xaq ku dagaalamaysan waa la arki qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ma aha mid u leeyahay waxaasi uu jahaysan yahay imika waxa la rabaa sidii laascaanood loogu soo celin lahaa gacanta Soomaaliland loogana saari lahaa huwantani waxaan soo bahaystay iyagana ciidan iyo dhaqaale iyo arrin iyo wax kastaana ka dhamaaday in yaro miiga laga keeno intuu dhaawacmo garow diyaarad laga saaro muqdisho la geeyo dhakhtarka laga tuuro hooyadii halka balanbasho adeer ma karayaan dadkan way qaxeen way dhibaatoodeen qaxmay aqoon reer laascaanood waxay ku noqotay la yaab magaaladii laascaanood markii u horeysay laga qaxay imika ay ogaadeen in
qaxa iyo dhibaatada iyo rabshada iyo waxa soo dhan dhibta ay leedahay qof kasta wuu dandabiyay maanta hadii la isku soo noqdo way ogaadeen in dagaal Soomaaliland cidna waxba kaga qaadi doonin siyaasadii arrimaha dibadda oo way ka xirantay beeshii caalamka way ka dhacday cid kasta siyaasadii in Garaad Cali way urtay meel ay ka noqdaan biilaayihiin warbahalka sheer gareeya meel fog gaarsiiya cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland gaarsiiya warar badan oo xasaasi oo la yaab leh ayaan idin hayaa waxaan ku wada yaabi doontaan aad iyo aad baan idin